bal maxaan haweenkiyo dumar ugu hiloobaa ama kula heshiiyaa ugu hagar la'aadaa sawtay ku heereen ku jareen halbowlaha milic kugu halgaadeen ku dhageen habaaskii cidla kaaga hoydeen horarkiyo waraabaha hilbahaaga siiyeen tukaha iyo haaduna hilbahaaga feenteen bal maxan haweenkiyo maroohilooba ama kula heshiiya ugu hagarlaada sawtay ku hawlin wadka ku horseeden durarku ilaabin hiryada ku saarin waa heestii haatuf waxaa codkiisa macaan inoogu luuqeynaya allaha u naxariistee fanaankii abwaankii aqoon-yahankii macallinkii caanka ahaa ee maxamed mooge liibaan heestan waxaa maskaxdiisa iyo miirkiisa caafimaadka qaba allaha u naxariistay isna ka curiyey abwaankii weynaa allaa weyne maxamed ibraahim warsame hadraawi heestani ma aha hees caadi ah waa hees ka duwan heesaha kale ee aad taqaanaan waa hees qiiro leh qisadeeduna waa qiso aad iyo aad u murugo badan abwaan hadraawi ayaa goor barqa ah waxa uu ka dhaqaaqay magaalada berbera xilli ay qoraxdu aada u kulushahay isaga iyo abwaano kale kadibna waxay tegeen halkii uu ku aasnaa abwaankii caanka ahaa ee buudhari dabcan waa xabaashii buudhari abwaan hadraawi xabaashii buudhari ha tagee waxaa laga dul kicin kari waayey xabaashii markuu dul fadhiistay wuxuu yidhi sidii aan fadhiyay malaha 10kii baan fadhiistay malaha ilaa 12kii labadaas saacadood baa xabaashii dusha kaga fadhiyay dabadeetna labada heesoota hore boqorkay huqiya ciil hagardaamo lumiso heesaa baroorta halqabsiga kalgacalko heesta odhanaysa ta hore waxaa qaada haddii ilaahay ka dhigo rag badan baa qaada cabdiqaadir bagaag iyo maxamed muge raggaasa qaada ayaan xabaashii dusheega maalintaa ka tiri wuxuu yidhi beel soo hayaantiyo hayin raran ma kulanteen hor ilaahay adigiyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal beel soo hayaantiyo hayin raran ma kulanteen hor ilaahay adigiyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal كيف دوسيو هوي هذا ناري دينا عيدي وياتا تريدوتا